Axaddii 31 Oktoobar ayaa waxaa Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay mudanayaal ka tirsan baarlamaanka. Kulankan ujeedadiisu ayaa waxa ay ahayd ansixinta ra'iisul wasaaraha dhawaantan uu magacaabay Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed, kaasoo fadhi hore oo ay baarlamaanku yeesheen ansixintiisa la isku maandhaafay, isla markaana ay ku kala qaybsameen xildhibaanada kuna kala taageereen Madaxweyne Shariif iyo waliba gudoomiyaha baarlamaanka. Xildhibaanadii taageersanaa gudoomiyaha baarlamaanka ee iyagu qabay fikirka ah in codka kalsoonida lagu siiyo ra'iisul wasaaraha qaabka qarsoon ayaa waxa ay goobta ka sheegeen inay ka laabteen mooshinkaasi. Intaa kadib ayaa waxaa la guda galay cod u qaadista mooshinka, waxaana gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan uu ka dhawaajiyay in loo baahan yahay mudanayaasha baarlamaanka in codkooda si xor ah ay u dhiibtaan, isla markaana ay ilaaliyaan anshaxa baarlamaanka. 297 ka mid ah 391 ka qayb gashay kulanka ayaa waxa ay ra'iisul wasaare Farmaajo codkooda ku siiyeen haa, oo macnaheedu yahay raalli ayaan ka nahay ra'iisul wasaaraha, isla markaana waanu ogolnahay qaabka loo soo xulay. Halka 92 ka tirsan mudanayaasha ay iyagu ku jawaabeen maya. Xildhibaanada diiday ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Ibraahim Xaabsade, Fawziye Maxamed Sheekh, Madawe Nuuno Maxamed, Xildhibaan Waqaa iyo waliba mudanayaal kale oo badan. 2 ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa ka aamusay arrinka codka dhiibashada ra'iisul wasaaraha, taasoo macnaheedu iyana loo qaadan karo haddii uu soo baxo iyo haddii la diida intuba waa isugu kaya mid. Markii uu gudoomiyaha baarlamaanka ku dhawaaqay natiijadii codbixinta ayaa waxaa ka dhashay hoolka buuq iyo zaxmad. Xildhibaanada qaarkood waxa ay arrinkaasi ula gol lahaayeen sida ay sheegeen farxad iyo tamashleen, halka kuwo kalena ay fowdo iyo dhib ula jeedeen. Waxaa lagu arkayay gudaha xarunta Golaha Shacabka oo buuq iyo zaxmad isqabsatay, isla markaana xildhibaanadu ay ku dhawaaqayaan Soomaaliyey tooso iyo erayo kale oo buuq iyo zaxmad ku dheehan tahay. Nuxnuxoose ayaa laga maqlayay xildhibaanada qaarkood oo tilmaamaysa in kol kale jallaafo loo dhigi doono xukuumadda uu soo dhiso ra'iisul wasaare Farmaajo kolka baarlamaanka ay hortimaado. Waxaana xildhibaanadaasi ay ku doodayeen in kalsooni ah 100 ku dhawaad ay iminka haystaan, isla markaana ay sii gooban doonaan codad kale si ay u jallaafeeyaan xukuumadda uu soo dhisi doono ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Maxamuud Farmaajo. Goobta waa uu ka maqnaa oo xaadir ma ahayn kolka la ansixinayay ra'iisul wasaaraha, laakiin waxaa la gaarsiiyay qabarka ah in murugtii ay ka foqday, isla markaana uu ku soo gudbay codkii baarlamaanka. Arrinta kalsoonisiinta ra'iisul wasaarahan waxa ay khilaaf dheer dhex dhigtay mudanayaasha baarlamaanka dhexdooda iyo sidoo kale labada mas'uul ee ugu sareysa dowladda waa labada Shariif. 1 November maalin kadib markii la ansixiyay ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu dhaariyay xarunta madaxtooyada Soomaaliya, waxaana dhaarintaasi ka qayb galay madax fara badan oo ka tirsan dowladda oo ka mid ahaa Shariif Sheekh Axmed, madaxweynaha kusimihii ra'iisul wasaarihii hore Cabdiweli Gonjeex, waxaana dhaarta fuliyay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah gudoomiyaha baarlamaanka. Walow dhaarta iyo kalsoonida intuba ay dhaceen ayaa haddana ra'iisul wasaaraha waxaa ka horgudban caqabado badan oo la xiriira sidii uu soo xulan lahaa xukuumadda tayo leh, isla markaana wax ka qabata arrimaha ammaanka. waxaana ku horgudban caqabado badan oo ammaanka ay ugu horeyso. Waxa uu cagta iminka la helay ra'iisul wasaaraha ugubka ah jid dheer oo ay ka buuxaan turunturooyin fara badan, isla markaana qodxa aad u fara badan ay yaalaan. Laakiin kol walba waxa ay natiijadiisu ku xiran tahay sida uu uga xeeladeysto maridda wadiiqaasi.